habeen wanaagsan caawa waxaa la bixiyay abaalmarin weyn taasoo abaalmarinta Globe Soccer oo sanado ka hor soo shacbaxday inkastoo 16 sano ugu dambeeyay tartiib abaalmarintan marba qorsheynteedu soo shaacinteedu ilaa heerka ugu sareeyay ka tageysay marba marxaladda ay soo martay markaanu ka hadlayno abaalmarintan waxaanu ka hadlaynaa abaalmarintii Ronaldo caawa mar kale ayaa la bixiyay abaalmarintan Ronaldo goobjoog ka ahaa qadradiisu oo la socotay Georgina ahayd sidoo kale waxaa joogay Lamine oo urursaday dhowr biladood Barcelona oo la siiyay bilado xitaa la boortay goobta ku sugnaa Paris Saint-Germain kooxdii ugu fiicnayd macallinkii ugu fiicnaa abaalmarin badan baa la bixiyay haddaba waan isdul taagi doonaa isla markaana mid baan u siin doonaa soo dhawaada muuqaalkana saaxiibadaada la wadaag mahadsanid aanu ku bilowni abaalmarintu waxa lagu bilaabay abaalmarinta loo yaqaano marka content creator ee bixiso marka best sportiga waxa jira abaalmarinada sportiga la bixiyo waxa jira marka abaalmarinta sportiga ee content creator-ka Middle East bariga dhexe Bilal Haddad yar la yiraahdo ayaa la siiyay samarkana codeynta ugu badan isagu qaatay marka tag badan baa markaasi ka qayb galay laakiin ninka bay nasiibkiisu noqotay markaasi waxa jira abaalmarinta akademiyada ugu fiican marka digta akademiyadan waxa la siiyay Right to Dream abaalmarinta la siiyay akademiyadan hadii ay tahay mid guud ama marka meel gaar ama Afrika ama bariga dhexe waa halkeeda laakiin mid guud marka la eego abaalmarino badan oo Yurub waxa jira ka mudan booskaasi ka waxtar fiican oo abaalmarino badan soo marka rag badan soo saaray ama xidiga badan banaanka keeno oo la geeranayo markaasi marka laga hadlayo waxa jirta markaasi abaalmarino badan oo la bixiyay oo ay kamid ahaayeen xulka qaranka wadanka Portugiiska oo loo doortay Best National Team iyaga la siiyay wayna mudnaayeen runtii ma dhigi kartay cajiib iyagu la yimaadeen xul badan hadda ka wanaagsan maanta ma laga hadli karaba waxa sidoo kale la bixiyay abaalmarinada wakiilka ugu fiican waxa jira abaalmarinta Best Agent Global Soccer Award abaalmarinta ama Globe Soccer Award marka waxa la siiyay nin la yiraahdo Jorge Mendes wanaad garanaysaan rag badan wakiilka oo Cristiano ku jiro oo Lamine Yamal ku jiro oo rag badan oo miisaan ayaan garanaynaa markaasi in wakiil uu ka yahay marka wakiilka ugu fiican nin kaliya baa jiray oo ka horeyn jiray oo la dhigi jiray Mino Raiola ninkaas oo isagu geeriyooday sanado ka hor kadib marka isagu ninkaaba hadda meesha haysta cid kale oo la tartamaysa ma muuqato baa leeyahay markaasi hadii la yiraahdo kooxda ugu fiican maanta ma jirto koox ka fiican gabdhaha kooxda kubadda cagta Barcelona waxaanu qabnaa doorashadii la siiyay Barcelona lagu siiyay inay ahayd mid sax ah tan mudnayd iyo waliba markaasi doorashadii saxda ee la doortay marka taa dood kama taagna halka gabadha Best Women Player Global Soccer Award waxa lagu siiyay ninka markaas gabadha la yiraahdo afwan Aitana Bonmati ayaa la siiyay samarkana farta laga saaray iyaduna waa gabar 3 Ballon d'Or ku soo guuleysatay dood badan ma gelinaysid ma mudan tahay mise ma mudan marka macalinka ugu fiican aniga iyo adiga kuma murmayno macalinka hadda aan ku sheegayo waa abaalmarin kale oo sax markaasi sababtoo ah waa macalinkii ku guuleystay tartanka koobkii UEFA Champions League waa macalinkii qaaday biladan dood badan lama gelinayo ma mudan yahay mise ma mudna markaasi sidoo kale waxa jiray abaalmarino kala duwan oo lagu bixiyay halkaasi laakiin abaalmarintii soo jiidatay dadku waxay ahayd abaalmarinta caanka ah ee Diogo Jota Award markaasi abaalmarintan special bay ahayd oo special award baa loogu talagalay Diogo Jota lagu xusuusto laacibkaas oo isagu dunidu abaalmarinta ku guuleysan isagoo nool isagoo markii uu dunida ka tagay way dunidu markaas siinaysaa laacibkan markaasi biladan waalidiintiisa baa markaas u qaaday iyagoo murugaysnaa ilbiriqsi aad u saameyn badan bay markaasi ku jireen runtii waxa jirta abaalmarinta la siiyo daayarada isla markaana la yiraahdo emerging player waxa la siiyaa xidigaha de talentigoodu waa yahay markaasi waliba wax badan qabsaday oo sanadkii hore Darwin geystay markaasi waxa ku tartamayay Desire Dui iyo kale laakiin isaga la siinaya laacibkaasi waana mudnaa runtii ma dhigi kartid ma mudna markaad fiirisid mustawa heerka uu soo bandhigayo iyo sidoo u dadaalay marka waxa jiray abaalmarino kale oo la bixiyay oo la siiyay Niko Kovac oo isaguna markaasi abaalmarinta bilada qaatay sheekada kale yaab kale ahayd waxay ahayd
markii special gaar abaalmarin special oo loogu talagalay Andres Iniesta la siiyay lagu caleema saaray. Andres Iniesta dhamaantii waxaanu qabnaa inuu mudnaa abaalmarintan iyo abaalmarino kale oo ka wanaagsan, inuu mudnaa biladan iyo bilado kale oo ka wanaagsan, sababtoo ah wuxuu ahaa geesi sanado badan isagoo xaqiisii aan helin. waan wada qiraynaa inuu ahaa nin wax badan uu kubadda cagta xitaa balandiir uu ka mudnaa aan la siinin sababun ha ku seegto markaa, laakiin waa la siiyay. marka la eego laacibka qadka dhexe best midfielder waxaa la siinayaa xidiga Vitinha. taana ani adiga iskuma khilaafayno markaasi Vitinha inuu ahaa geesi mudnaa, guuleystay xaqiiqiya, unbelievable ahaa, mustawiisu mustawa markaas aan la iska indhatiri karin uu isagu markaa waliba kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ciyaareedka la soo dhaafay sabab kamida sababihii ugu guuleystay tartanka koobka UEFA Champions League ayuu kamid ahaa. sidoo kale Lamine Yamal weeryahanka ama best forward baa markaa loo doortay, markaa ninkaasina CF ka ama best forward ku isaga la siinaya 2025 abaalmarin kale oo isagu markaa haduu ku guuleystana dood badan siinin. marka la eego abaalmarinta hadda aan ku soo wado waa dhici karaysaa boss hebel nin boss loo waayay, nin aan saaxiibana wuxuu dhihi jiray haddii lagu rabo hebel oo wasiir hadduu ku rabo wuxuu ku leeyahay kaalay imow kursiga marka aan fadhiyo dhinaca kale kursiga yaala ku soo fariisto, marka aniga aan baxayana bax mushaaraadkaagana bishii soo doono. marka boss saas camal marka boss loo raadiyo ayaa ka dhacday. Pogba ayaa la siiyay markaasi comeback award abaalmarin la yiraahdo oo laacib markaas inta dunidu ciishay haddana soo laabasho wanaagsan baa loo jeedaa, laakiin Pogba wax wanaagsan oo weyn oo la soo laabtay hadda ma jiro. marka eeg Luis Campos waxa la siiyay abaalmarin kale oo weyn isla markaana saameynteeda leh, markaa waxaana uu qaatay abaalmarintan oo kamid noqon doonta kuwa loogu hadalay inta badan yahay sida kelmadu macna u leedahay, waana best sporting director. markaa guuleysigiisu su'aalo badan waa keenaya ma mudan yahay mise madaxweynaha ku guuleystay oo bestiga markaasi intuna dood badan ma gelin kartid. waxaan ka hadlaynaa madaxweyne Nasir Al-Khalifi. PSG sanadkii hore waxay samaysay sabab uu ahaa markii uu soo fashilmay, Neymar keenay, Mbappe keenay, rag kale keenay oo Messi ku jiro ilaa Dembele aakhirkii Dembele oo markaa luka hitinayo dhaawacla ah ayuu keenay isla markaana meel dheer gaarsiiyay. markaa taariikh kale bay noqonaysaa markaad fiirisid kooxda naadiyada ugu fiican naadiyada Yurub PSG bay noqotay. taana waa bilad kale oo mudan yahay isla markaana aadan dhihi karin ma mudna. odagii ahaa Mexico Cristiano waxa la siiyay laacibka ugu fiican bariga dhexe, waa abaalmarin kale oo weyn oo isaguna ma dhihi kartid boss odagu boss looma weyn karo markaasi boss looma weyn karo maxaa yeelay waa mudan yahay maxaa yeelay abaalmarinta the best player of bariga dhexe Middle East isaga la siiyay waa cajiib. markaasi sidoo kale abaalmarino badan baa la bixiyay oo ay kamid tahay abaalmarinta ugu weyn ninka ugu fiican waxa la siiyay Ousmane Dembele world best player isaga mudan. markaa kan ugu fiican dunida kubadda cagta 2025 abaalmarintan nin Ballon d'Or kii qaatay the best la siiyay galobkii maxaa la yiri adigu muxuu ahaa waxa uu ku jecel bishu ku jecel Soomaaliin ma saasaba jirtay, laakiin isku soo duubo ninkaas isaguna waa ku guuleystay. Cristiano waa la siiyay, Paris Saint-Germain waa qaadatay, Nasir Al-Khalifi waa la siiyay, abaalmarinadu waa ka Lamine Vitinha rag badanna waa ka. markaasi biladuhu sidaas baa loo urursaday. adigu fikirkaaga maxaad diidi lahayd, maxaad sadhihi lahayd way mudan yihiin, yaad siin lahayd abaalmarinta markaa haddii uusan mudnayn ninkaasi waad leedahay ma mudna Ousmane Dembele bal ninka kale hala siiyo biladaasi. markaa aad ma maasantahay daawadayaal, soo dhawaada markaasi waan kaga mahadcelinaya dhamaantiinba saad ugu xirantihiin barteena meel kastoo aad joogtaana. waxaan idin leenahay habeenku haydin wacnaado. Dembele haddii aad u aragtid munaasab inuu yahay adigu fikirkaaga dad baa arki karo ku dhigi kara may waa muxuu ahaa ma jirto ku dhigi karay, laakiin saas oo tahay Barcelona waxa jirta abaalmarino kala duwan oo la siiyay lafsadeedu oo Laporta oo xitaa abaalmarino isagu qaatay oo la siiyay. Hansi Flick baa la siiyay cafwa raggan ka tagay waxa kamid ah Hansi Flick oo loo doortay best coach La Liga xilaareedka la soo dhaafay abaalmarinada guud ahaan marka ka soo tagno soo galno La Liga kale waxa la siiyay macalinka ugu fiican
naadiga kubadda cagta Barcelona macalinka Hansi Flick kooxda ugu fiican waxa la siiyay ninkii ahaa Barcelona markaasi Juan Laporta oo ururiyay biladaasi Rafinha waxa la siiyay laacibkii ugu fiicnaa xilaareedka la soo dhaafay La Liga waa biladaasi markaa abaalmarinadii la bixiyay bay kamid ahaayeen Lamin baa su'aal laga weydiiyay balka waran baa bilada lagu siiyay sharaf bay ii tahay buu biladan aniga inaan gudoomo oo ii gudoonsiiyay Iniesta waa wuxuu yiri daawashada Lamin windhow baa ku doogsanaya buu yiri ama ahaato Barcelona ama xitaa xulka qaranka wadankaas Spain meel kastoo aad joogtaan labadiino